قفك إنه خلدما وين عفن والله عفسك إلهي أكتيس وحوين بالغ جهلا هذا ولا شاك وخلدم تويسك عفي هذا قوم حيكو هريا إلهي سبحانه وتعالى هذا قوم هريا وين عفس والله هذا عرب كاب ذكرك الله صاحبه دعاء كستود إلهي ودي ستود هليس إلهي حقوقه بركين وبسنسكو بركين وقاعد أركي ميسي وليس أركي ميسي وحد كور ورت أركي ميسي بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan u imaado hooyooyinkay hablahayaga dumarka wanaagsan iyo mujtamaca ku dhaqan suuqa ee ku shaqaysta caruurahooga ku korsada in iyaga oo ku jira shaqadoodii maalmeedkoogii aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala isxasuusino waa wax anigu aan u baahanahay idinkuna aad u baahan tihiin bal waxaynu ka hadli doonaa cafiska maadaama aad tihiin dad meel iskugu imid kala dabeecada ah basharku hadday meel degaan waa kala dabeecado waa kala dhaqan marka bini aadamka waxa ka dhasha xanaf ku shaydaanku dhex marinaya marka dad la dhaqmaysid muslimiin ah qiimaha uu islaamku siiyay cafiska in la iscafiyo maadaama bani aadamka ay ku abuuran tahay wax iska dhici fitrad ah dadka la shaqaynaysid ee kala duwan hadii inuu walaalaha ay wax ka soo gaadhaan si aynu isku cafino cafiska iyo wuxuu ilaahay ka yiri subhanahu wa ta'ala iyo qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay qofka wax cafiya aynu eegi doonaa insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxa ku soo arooray 44 aayadood oo ilaahay uu kaga hadlayo cafinta in la iscafiyo in la isku tanaasulo xaqad lahayd inaad bar ka tagto walaalayaal cafisku macnihiisu waxa weeyaan inaad ka tagto xaq aad leedahay adigoo uga tagaya ilaahay daraadi adigoo sabraya oo ilaahay daraadi ugu tanaasulaya horta weeyaan cafisku ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله هدي قفكو دباتيو أو دباتكو كيستو waxaad ka goosan kartaa oo lagu ogol yahay intii oo kale intii uu kugu sameeyay in lag laakiin ilaahay wuxuu yiri faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah qofka cafiya qofkii uu wax ku sameeyay cafiya ee aan ka goosanin ajarkiisu ilaahay baa leh oo siinaya yani ajarkiisu ilaahay buu agyaala ajar aad u weyn buu ilaahay kaga helaya walaashaayo kugu khaldantay oo aad iska dhaaftay oo aad saamaxday waxaad ilaahay ku leedahay ajar aad iyo aad ugu weyn aayad kale waxay leedahay in tubdu khayran aw tukhfuhu haddaad wanaag samaysaan khayr haddaad samaysaan ama aad qarsataan oo sir ilaahay ag dhigataan aw ta'fu an su'in يعني إن الإلهي أسرار لا أجيلته أتصير إلهي يا خير فربنا أد شقيسته إلهي وحول الله أقدقي ولم يسأنا إن تقف عفده قف حمانك وقسمين تسك عفده أيو إلهي سبحانه وتعالى وأقدقي إن الله كان عفوا قديرا بقول إلهي سبحانه وتعالى عفسكو رنتي ما هو حيارة إلهي سبحانه وتعالى وحليه هذا ضلالك عفدو إلهي أكتي سوحد كل ذي درجات ولي بيسقو قفكو آرقو وسنكريا مركو ولالك يسكعفيو إلهي أكتي سوحد كهلا رفعي كرو قادس بإلهي أكتي سكهلا هي درجات هي جنات النعيم أي إلهي أكتي سكهليا markale ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala adigoo lagu dhibaateeyay
haddaad adigu wanaagga badiso mar kasta waxaa khayr badan inaad ahaato ka sarreynaya ee wanaagga qaadanaya. waa lagu dhibaateeyey, waad aargoosan karaysa, awood baad lahayd, haddana ilaahay daraaddii baad uga tagtay. waxaa sarreeyey oo ilaahay agtiisa darajaad helay kaas ka tegay walaalkii ee u tanaasub. xabiibaatii, ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay waalkaadimiina alghayda waalcaafiina cani innaasi wallaahu yuxibu almuxsiniin. kuwa cadhadooda qarsanaya. waayo waxay idhaahdaan culimaa nafsigu qofku markuu cadhoodo caqligiisa daboolma. marka qofka cadhadiisa qarsanaya ee caqligiisa kaantarooli karaya markuu cadhoodo. waalkaadimiina alghayda waalcaafiina cani innaas, ee dadkana iska cafinaya. wallaahu yuxibu almuxsiniin. kuwa sidaasi ah uu jecel yahay ilaahay kuwa wanaagsan. kuwa wanaagsan buu ilaahay ku daray dadka cadhadooda qarsanaya. bani aadamka waxaa ku jirta fidro ah marka wax lagaa sheego ama lagugu xadgudbo inaynu xanaaqno oo qalbigu inuu ruxmo oo jidhka iskelino. nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo ashrafu nnaasa ayuu ilaahay ku leeyahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun. waanu ognahay oo waanu garanaynaa inay laabtaadu iskelayso oy diiqad dareemayso, jidhkaagu iskelayo waxay kugu leeyihiin quraysh. isagoo ah khayru khalqillaah, isagoo laga saaray wasladii shaydaanka. maxaad inoo malaynaysaa inakoo masaakiina oo iimaani jirin? qof halkaa maray baad oranaysaa mala anuu iiga jeedaa. dadku way kala wada shaksan yihiin iimaan darro daraaddeed. akhlaaqdeenniyo xumaatay, qiyamkiioo laga tegay, wanaagiioo naga sii suulaya. waa calaamaad yowma alqiyaama. xumaantoo badata, wanaagoo yaraada, waa calaamaad yowma alqiyaama. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qofka iska cafiya walaalkii, qofka walaalkii iska cafiya ee wanaagga qaata, kaa wax ku sameeyey ilaahay wuxuu ka dhigayaa ee cadowgiisa ahaa ee dhibayey markuu cafiyo ee uu wanaagga qaato waliyun xamiim buu ilaahay iskaga dhigaya subxaanahu wa tacaala. laba isjecel ayuu ilaahay ka dhigaya subxaanahu wa tacaala. maadaama aynu nahay dad suuq jooga intaa ay waxayna dhex marayaan, waa inaynu maxay haytay aynu samayno tasaamux fara badan. ilaahay wuxuu leeyahy waaladiina idaa asaabathum albagyu hum yantasiruun. dadka marka gardarra ay ku dhacda iska dhaafaya, kuwaasi ayaa ah kuwa guulaystay. ilaahay baa ku ammaanay subxaanahu wa tacaala. mar kale ilaahay wuxuu leeyahy wajazaau sayi'atin sayi'atun midluha. qofka xumaantii loo geystay xumaan la mida uu samayn karaa, uu aargoosan karaa. waa min xaqika, xaqu ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala. laakiin ilaahay muxuu sii raaciyey waliman sabara wagafara ina dalika lamin casmi alumuur. qofka maxay haytay sabra ee cafiya walaalkii oo xumaan ku sameeyey, arrintaasi waa meel sare. dadka sarsare ayaa wax cafiya, arrintiisu meel sare ahaatay buuri oo halkeeya carshu raxmaan buu warkaagu gaadhaya. ilaahay baa malaa'igta kuu sheegi doona oo oran doona addoontaydii dadkay cafinaysaa ee iska cafi dadka xabiibati alghaaliya. nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas ku sugan saxiix albukhaari saxiix almuslim wuxuu ku leeyahay wamaa zaada allahu cabadan bicafwin ilaa cizan. ilaahay addoonka uguma kordhiyo addoonka wax cafinaya ilaa sharaf mooyaane. qofka wax cafinaya ma qofka liitaa? maya maaha, waa qofka cisiga iyo sharafta u saaxiibka. mar kullama aad qof cafiso insaydkaaga waxaad ka dareemaysaa caafimaad, waayo waxaad iska saartay xumaantii qalbiga kaa geli lahayd. waxay kuu yahay caafimaad adiga, wuxuu kuu yahay darajaad ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala. marka xabiibaatii aynu badsanno cafiska. cafisku maaha liidnimo, maaha doqonnimo. iminka qofka wax cafinaya bulshadeenna wuxuu ka dhex noqday qof aan aargoosan karayn oo doqona, laakiin maaha sidaasi sax maaha xabiibaatii.
bat ee waa qof ilaahay agtiisa ay wax badan u yaalaan qofka wax cafinaya nabiyullaahi muxammadin sala allahu calayhi wasalam xukunkii uu sameeyey nebigu kuma jirto argoosi xadiiska ku sugan saxiix albukhaari nebiga sala allahu calayhi wasalam weligii muu argoosan wax isaga naftiisa lagu sameeyey weligii ilaa dil baa loo badheer muu argoosan nebigu wuxuu sameeyey waxaan ku sugnay taariikhda kuma sugna cafisku nebi moxamed sameeyey sala allahu calayhi wasalam taariikhda la soo maray intii ka horreysay isaga iyo intii ka dambeysay waa hogaamiyihii ugu cafiska badnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam dagaalkii uxud nebiga waa la jabiyey khasaaro weyn baa soo gaadhay saxaabada maalintaasi khaladkaasi wuxuu u dhaxay saxaabo ka baxay ballankii nebiga ay la galeen sala allahu calayhi wasalam nebiga dhib badan baa soo gaadhay madaxiisa waxaa gashay koofiyadii uu xidhnaa ilkihiisa rasuulka waa la jabiyey wuxuu haystay 9 ilaalo 7 ka mida laga dilay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalam god baa lagu riday markuu xeelad dagaal dib ugu baxay buurtii la korayay uu kari waayey ilaa uu saxaabi u foorarsaday oo uu ku istaagay nebigu sala allahu calayhi wasalam hogaannimadiisa ayaynu ka warramaynaaye nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo waxaasoo dhan ay ku dhaceen haddana ilaahay muxuu ku leeyahay markuu la hadlayay فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر waxaa lagu yidhi haddaanan raxmad annagu ku siinin aanad ugu dabacsanayn maad dabacsanaateen haddii aad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qalbi adag leh way kaa kala yaaci lahaayeen saxaabadu laakiin ilaahay naxariistiisa ayaad ugu noqotay mid dabacsan oo raxmad badan waxay sameeyeen ee khalada kala tasho waxa lagu leeyahay cafi dambi dhaaf ilaahay u weydiiyey hadda jabkaa weyn baa soo gaadhay khaladkii sameeyey lana tasho oo arrinta xataa iyagoo khaldamay waxay ku leeyihiin talo ayuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo inaga waxayna baraya qofka inagu khaldama waa inaynu cafino wallaahi cafiska ilaahay agtiisa wax weyn baa lagaga helaa hadduu walaashaa kugu khaldanto iska cafi adigoo maxay ku hadhaya ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo u hadhaya waa inaad cafisad nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintii uu daa'if tegey markay reer maki ku xumaadeen markuu daa'if u baxay wuxuu tegey markay reer maki daa'if tegey bay soo shiideen waxay ku sallideen dumarkoogii iyo carruurtoodii wax magaratadii nebiga waa la shiiday sala allahu calayhi wasalam dhiiggii ka soo dhacay madaxiisa halkuu dhulka dhigaba dhiig baa buuxsameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo miirsaday nebigu isagoo meel fadhiya buuro dhexdooda waxaa u yimid malag wuxuu ku yidhi yaa muxamed waxaan ahay malagii buur wuxuu ku yidhi ilaahay uu maqlay hadalkii qowmkaas ay kugu yidhaahdeen aniguna waxaan ahay malag ilaahay kuu soo diray oo malagii buuraha ah waxaad doontay amar buu ku yidhi weliba dadkaasi waa dad gaalo ah nebiga waxaa ku sameeyey sal alla ly salam wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi malagu buuraha labada buurood ee u dhexeeyaan ma isku dhuftaa gebigooguba ha baaba'aan maya buu ku yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaan ka rajaynayaa dhabaradooda inuu ilaahay ka soo saaro dad diinta ilaahay u shaqeeya subxaanahu wa tacaala adiga goolkaagu ma waxa weeyaan ilaahay markaad la kulantid ilaa ilaahay bayn la wada kulmi doonaaye ma waxa weeyaan goolkaagu inaa ilaahay jaa-isad ugu agtagtid mise in dadku waxay ku leeyihin ay ku dhibaan ta dadka iska iloowa iska cafi ilaahay baad ugu agtagi doontaa wax wanaagsan aad ku faraxdide
إلهي من لكل مدونا سبحانه وتعالى موحن إلهي لكل مدونا إنه مالين كليه لكل انكيس إلهي كلهالين سبحانه وتعالى انت تفريستي متري يا ربي متى يا ربي إلهي يحلي من كل مياه شوق بنو قبا أركتي دادا حيسا أقبا كالكعل بنو قبا إنانكو أركو يا ربي متى إله هو حلما ما يسترى أدقو إلهي ما كلا هذا سبحانه وتعالى وما أنت ظهر تكتد إلهي سبحانه وتعالى وكوكو إلهه يا أمتي هبلايو أدونتي دي هبلايو انت تسوغي سي مالين تان إنينو كلانو ما أنت هاتمد إلهينا وكورا أني قونا سيداسو كلن كوسوغي مثل ما شدي يوم بينو كبقنا يوم محسوسا نبلا كلن كإلهي سبحانه وتعالى وين كوصورنا تولا كلن كإلهي سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم مركو دمني ملك الجبريل باو إمد وحكيري يا رسول الله وحي لصعد ملك الموت وكائذا قادرنا إنو صوق لقرقاقا سودا بكل مركو صوق لي حبيباتي وحكيري النبي صلى الله عليه وسلم سيدي بي سمضو أهيد بل إيشاك ملك الجبريل وحيري سمد الباب ذي ديودن بالا فراي ملائكتي باصفف كلي روح ذا سودا وين يا رسول الله أديكم يسويدين نساء أنيق روح ذا ملا سودا وين دونا مركان تغو سمدا إلهي أرمها مكلا هذا الشهر وديار موتها نفتاذو مركي ديماتو سيدي سمدا تلو لوغا سودا وين دونا ملا أوران دونا أدونتي هبلاياتي إلهي ما أوران دونا سودا ويا أدون ونكسن بامانتي إيمانيسي أدومها قار كود marka samada ruuxdooda la geeyo albaabada waa laga soo xidhaa adoomaha xun ilaahayna kama midiyaan adoomaha qaar kood malaa'iktu way garanayaan ma heblaayadii weyneed baa maanta iman ma hebelkii weyna yani way garanayaan waa adoon samada laga yaqaan adoomaha qaar kood way gudbayaan laakiin lama garanayaba adoo kooweebad ku jirtaa bal naftaada la xisaabta ma waxaad ku jirtaa adoomaha la oran doono safaf kala heblaaya imanaysa mise waxaad ku jirtaa adoomaha la garanaynin ilaahay kala sheekayso inta aanad tagin ka hor ilaahayow mataa xiisaha ilaahay aad u qabto ka dhabe jacayl hadaad ilaahay u qabto ka dhabe miyaanu jirin qofku jecel yahay inuu arkuu jecel yahay marka dhimashada kalooyba weyna ku xukumanahay dhimashadeena macnaanu yeelno adduunka inuu kaga tagno akhlaaq wanaagsan ودتك مركز كبحد الله يراهده والله هبلاية ذا سهبلاية ونكسب بهد سمضنا كفكر وإلهي كتمني إن إلهي كاسودوي سبحانه وتعالى أو يراهده أدون ونكسنا شعلها يبقى إيمان سماد أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها مركز دمتي خديجة ملك الجبريل بالنبي قوي صلى الله عليه وسلم وحكوا لها كم في خديجة خفنت دولك تال إلهي با أسودي بي كفن أكتي سكتب سبحانه وتعالى إلهي وحوليه مرضا قالي حريرتا أنا أكتي إذا كتب خديجة لغو كنفو ويا هنتي ذي ونبي إلهي درادي وبحث إلهي با تشركة يجي شرفا مركي روح ذي كبح ذي أيو إلهي تشركة يجي نشرفا وايو إلهي دينتي سيوشقيس إلهي ذكري سيقبصتي خديجة نبي أي كبر بريستاتي دعوة ما دامين هيدا تسوق شقينا يا خرط وين نسود عفنه ما قررنا نحل قلي نسودوني ضدك وين يود عفنه قف كستو سوق شوقي وإحنا دحمرين تعامل وين دعفس هانتذا هذا وإن الإلهي هبيراته وحيرو كم إلهي أسيدي بتو هدي ولا شاكا سوق بدنت الشيطان كقرنير تتامحه وحلوقي بسداون وإن ترى هذا إلهي وبركة أنا جن إلهي أرساقة إذا يفرفر ويقف ولبوح قادنا يا رزق يسيو والشيطان كو وحدح مرا بني آدم كهل كديكو كلو كمرا ميل كستو كاسو كلي وكافايدي سنيا وإن النقطان شار وحوذا يبسله
oo isjecel ilaahay daraadii isku jecel marka labaadna ehelnimo isku jecel waxaynu nahay dad ilaahay magaalo ku wada abuuray isku wada ehela isku wada xidida marka waa inaynu ehelnimada qaraabanimadana isku jeclaano ta koobaad ee asalkiina waa in ilaahay daraadii la isku jeclaado in dadka suuqa kaala shaqaynaya dhibaatadaada ay ka nabad helaan ay ka ammaan helaan dadka aad iska cafisid aad nabadgelisid waxa kale oo idinkula dardaarmaya ina xaaraanta iska ilaalisaan xoolihiina xaaraanka ilaashataan haba yaraato waxa yarad haysato ilaahay aad la hortagtid adigoo inta yarad haysato uun barakaysanay wallahi wax ka macaani ma jiro markaad haysatid xalaal haba yaraatee waa macaan laakiin dad wax badan oo xaaraan aad haysato macna ma sameynayso kullama aad iska ilaaliso xaaraanta iyo albaab kastii ka soo galayso ogsoonow ilaahay baa xoolaha kuu barakayn doona ilaahay baa caafimaadka kuu barakayn doona ilaahay baa awlaadda kuu barakayn doona kulli waxaasoo dumar oo suuqa ka shaqaysanaya iyo waxaasoo nin oo shaqaysanaya caruur bay soo shaqo tageen uu yar yahay qofka naftiisa u soo shaqo tagay qof waliba caruur buu ku biishadaa caruurtaada ha iska gelinin xaaraan waayo markaad dhimato haddaad xalaal ku korin jirtay ilaahay baa kuu xifdiyi doona adiga dabada haba yaraatee bisinka u qabo aroortii markaad soo kalahdo waxaad tiraa ilaahay oo barakadaada nala kulansii اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك وحكست إلهي جنة لك قدونا صلاة هاga إلهي جنة كقدون هذا الكاga إلهي جنة كقدون dadka aad u dulqaadanaysid ilaahay janno kaga doon business ka yarad haysato haba yaraade ilaahay janno kaga doon waxa jira ilaahay oo kaariyoonaha yar buu wax ku iibsada anigu ilaahay oo amalka yar janno ku rabaa waxa ugu yarad sadaqad ka bixin karta ka bixi ilaahay baa ku barakayn doon subhanahu wa ta'ala noqda dumar ilaahay la saaxiiba oo ilaahay dikrigiisa inta aad fadhidaan ee ugu badan aad haysataan dikri intaad wax iibinayso intaad shaqaynayso dikriga ilaahay carabkaaga la saaxiibsi waxay oran jireen dadkii wanaagsanaa qof wanaagsan la saaxiib waayo agtiisa waxaad ka helaysaa mawadda kalkacal naxariis wanaag ilaahay uu ku xasuusiyo oraah wanaagsan oo qura haddaad weydo qofkaas qof wanaagsan haddaad weydo dikriga ilaahay baa kugu filan subhanahu wa ta'ala إلهي ذكرك يساوي الكوء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحلا هذا إمام أحمد بن حنبل أيحكوا الصابغ من مساجد كهرتيسة كوكر صدا وحكوا سمايا عشيرة يعني وحلا هذا روايات وقف بوح بكشة نين هالكام مساجد كهرتيسة كوكر نحسن شري وأكتشيف صدا كابد ودوبو تشيف صدا وإمام أحمد بن حنبل markaasuu yidhi wuxuu dhahdaa ninkaa yari subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata illa yacni dikriga ma jooji wuxuu ku yidhi dikrigaagu ma istaagaye maxaad ku heshay wuxuu yidhi wallaahi duco kastan ilaahay weydiista waan helaa ilaa midunbaa ii dhiman maxaa kuu dhiman ilaahay waxaan baryayaa inuu ila kulansiiyo axmed bin xambal markaasuu ku yidhi sawnigan kula joogaba ilaahay taana uu ka aqbalayo waniga maanta isla kulana wallahi hadduu carabkaagu dikriga la saaxiibo duco kastood ilaahay weydiisato wad helaysa ilaahay xooguu kuu barakayn oo businesskuu kuu barakayn oo gaajo arki maysid culays arki maysid waxaad ka warwarta arki maysid wixii aan saxay waa aniga iga timaaday ilaahay bay ka timaaday waxa khaldayna shaydaan bay ka yimaadeen